xogayaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka ee cud maxamuud cali salebaan ramaax oo maanta qaybo ka mid ah warfidyaanada kula hadlay magaalada Burco ayaa waxa uu ka hadlay abaaro ba'an oo soo food saaray deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer waxaan ugu baaqay wasaaradda horumarinta deegaanka inay bulshada u furto seeraha magaalada Burco kaasoo uu sheegay inuu hadda xidhan yahay waana kan isagoo amuurtaasi ka hadlaya. Burco maanta waxa ka taagan degmada Burco abaar baahsan baa ka taagan dadkii laba garbu kala go'ay gar wuxuu qabtay hawd oo roobkii ugu dambeeyay deyrtu ay ka deeyeen badna wuxuu qabtay waqooyi oo isna lagu raagayna durbo kulaylka bilaabmi doono bishii soo socota 15keeda wax alle wixii isqaadi kari waayay waxay ku hadheen eeriyadii ilaahay abaar xun ay naga hayee dhulku caws waleeyay meelaha qaarkood biyo la'aan baasan baa ka taagan meelaha qaarkood cawsna male biyana male sidaa daraaddeed waxa aan ugu baaqayaa wasaaradda deegaanka inay degdeg u furto seerihii gobolka Togdheer waayo waa xilligii loogu talagalay inay xooluhu ku baxsadaan. dhinaca kale xogaya ramaax oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu bogaadiyay komishanka doorashooyinka Soomaaliland waxaan balyeynaya komishanka qaranka waxaan balyeynaya dadweynaha ku dhaqan gobolka Sool iyo Sanaag oo si mugle isu diiwaangeliyay si looga baxo raagalaanimadii iyo dhidkiskii ku jiray golayaasha qaarkood runtii aad u hambalyeynaya iscilqaanka dadweynuhu iscilqaamay mas'uuliyiinta mucaarad iyo muxaafidba laamaha dawladda dhammaantood iyo dadweynuhuba ay isu xilqaameen sidii diiwaangelintaasi labada gobol oo aad u tirsanayay inaan diiwaangelinihii hore si fiican uga hawlgelin iyadoo la fulinayo go'aankii baarlamaanka ka soo baxay iyo awaamirtii xukuumaddaba waa qaateen inkastoo aanu leenahay suurdaarooyin baa jiray taasna ilaahay dhanay inoo wada jeediya baanu leenahay. geesta kale maxamuud cali salebaan ramaax ayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu ku bogaadiyay guddi uu dhawaan magacaabay madaxweynuhu waxaan ku hambalyeynaya madaxweynaha runtii hay'adda insurance-ka ee uu magacaabay oo runtii ahayd wax aad iyo aad loogu baahnaa horena in badan ka hadalay. ugu dambeyntii siyaasi ramaax ayaa su'aalan weydiiyay waxay u dhignayd sida tani dadka qaar waxay sheegayaan xogayay leeyihiin iminka madaxweynihii bay isu dhawaadeen oo heshiis yihiin siyaasi ramaax arrinka maxaa ka jira aniga madaxweynuhu tasaad baanu isu garanaynaa waana madaxweynahaygii marka dhawaan iyo fogaanshiyo malaha siyaasadana waa ku wada jirnaa waana kaga soo horjeedaa siyaasadda hogaaminta maanta inta ka soo horjeedeele waxbaa qaldan ayaanahay. waa maxamed suldaan telefishinka on cable Burco. ma ogtahay macmiil in shirkadda Somtal ay ku daafurtay wejigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai mobaylo talaagado qasaalado tablets dhammaantood baa shirkadda Samsung dahab iyo dalxiis hotelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahabshiil ah oo ay lacag kugu jirto. haddaba si aad uga mid noqotid guulaystayaasha fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtal sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ah ee e-dahab. mar kasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtal waxaad fursad u helaysaa in eheladaada iyo asxaabtaada ay ku codeeyaan bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtal uu soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad. tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefonkaaga kadibna geli telefonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5000 waxaanaad ugu diri kartaa si lacag la'aan ama bilaash ah. wixii faahfaahintaasi dheer nagala soo xidhiidh lambarka gaaban ee 333